dukumentigan haddii aad haysatid Jarmalka ma ka bixi kartaa qofkeesa isagoo dukumentigan haysta wadanka Jarmalka ka bixi karo oo wadamo kala tagi kara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan wareelka shacabka YouTube-ka muuqaalkayga maanta waxaan uga hadli doonaa haddii aad haysatid dukumentigan isku laabka ah ama sharcigan isku laabka ah oo qof walba oo wadankan Jarmalka soo gala marka ugu horeysa la siiyo, haddaba ma ka bixi kartaa wadanka Jarmalka oo ma tagi kartaa wadamo kale. hadday tahay markii kugu horeysay ee bartan wareelka shacabka YouTube aad soo booqatay, waxaan ku leeyahay gacmo furan ku soo dhawow qaybta hoose ee subscribe-ka naga hilmaamin. haddii aad hadda wadanka Jarmalka aad soo gashay ama aad horey u joogtay oo aad haysatid dukumentigan ama warqadan isku laabka ah aad haysatid, wadanka Jarmalka ma ka bixi kartaa. goormeese aad ka bixi kartaa wadanka Jarmalka? dukumentigan haddii aad haysatid oo aad u baahnaatid inaad wadanka Jarmalka ka baxdid, bataatan horta dukumentigan haddaad haysatid waa ka mamnuuc in aad wadanka Jarmalka ka tagtid. waxa qasab kugu ah inaad wadanka joogtid, laakiin haddii aad wadanka ka baxdid, haddaba ogow dukumentigaaga waa luminaysaa oo dawladdu way ka qaadanaysaa, wayna ka cashanaysaa. waxayna markaasi dawladdu xaq u leedahay in ay wadanka dhan ka buriso ilaa dukumenti dhan ma haysatid. haddaba haddii markaa aad tahay arday ama qof waxbarta aad tahay oo iskuul dhigta ama jaamacad dhigta oo aad sameynaysid waxyaabaha loo yaqaan Ausflug oo markaasi ardayda aad raacay sidoo kale, ama ardayda ayaa la yiri waxa tagaysiin Holland ama Belgiumka ama wadamadan Yurub kamid ah ama wadamo kaleba iska dheh ayaa tagaysiin. haddaba waxa lagaaga baahan yahay warqada cadeynaysa Ausflug inaad sameynaysid oo ardayda aad raacaysid, isla markaana qasab tahay inaad ardaydaas raacdid. warqadaas ayaad waxa u geenaysaa Raadhouse qaybta Ausland Behodarka ee sharciyada laga soo qaato. markaas waxay ku siinayaan warqad ama dukumenti ogolaansho ah in aad wadanka Jarmalka ka baxaysid. haddaba sidaas u kala ogow, haddii aysan qasab kugu ahayn in aad wadanka ka baxdid oo wadanka meel ka baxsan aad aadid, haddaba ma ka bixi kartid wadanka. laakiin haddii aad sidaas oo kale qof waxbarta aad tahay ama qof siyaabo kale wadanka uga baxayo kale aad tahay oo kale oo doonaya in uu markaas wadamada wadankan la deriska ah tago kale, warqad cadeyn ah ama wax cadeynaya in aad markaasi ay qasab tahay inaad baxdid ayaad keenaysaa. warqadahaas markaad keentid qolooyinka Ausland Behodarka ayaad u geenaysaa, ayaga ayaana ku siinaya ogolaansho ah in aad wadanka ka bixi kartid. muuqaalkayga maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. intaa muuqaalo kale oo xiiso leh ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.